Asalaamu calaykum. Mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay isticmaalka maandooriyayaasha iyo sidii uu ugu faafay caalamka. Waxaynu ku ogaanaynaa intaynu ku guda jirno barnaamijkan taariikhda isticmaalka mukhaadaraadka, qaabkii ay adduunku kusoo gaadhay, iyo weliba muhiimadda qayb mukhaadaraadka ka mid ah ay caafimaadka u leedahay, amaba haddaan sida kale u dhigno in loo adeegsado qayb mukhaadaraadka ka mid ah caafimaad ahaan. qaybtan koowaad waxaynu kaga hadlaynaa daroogada nooca loo yaqaano cocaine-ta. waa daroogo laga helo kicinta shucuurta qaybta farxadda, waxaana laga soo saaraa laba nooc oo ka mid a geedka kookaha, kaasoo ka baxa qaaradda koonfur Ameerika. waqtiga isticmaalka uu qofku isticmaalo, calaamadaha jidheed ama calaamadaha nafsiyeed ee isbedelka ku dhaca waxaa ka mid ah inuu qofku farxad zaa'id u dareemo, hamada galmadiisuna ay aada u zaa'ido. waxaa kaloo iyadana meesha ka baxda inuu iloobo xaqiiqada dhabta ama nolol khayaaliya u galo, taasoo horseedaysa inuu dhammaan iloobo wixii cilaaqaad ama xidhiidh ula lahaa dadka kale ama dhibaato ku dhacday laftirkiisa. waxa ugu badan ee ay u adeegsadaan ayaa taas ah in ay inta badan ay isku ilowsiiyaan dhibaatooyin noloshooda soo maray. dhibaatooyinka kale iyadana ama side effectiga oo jidheeda kasoo baxana waxaa kamid a qofka isla daqiiqaduhu qaato waxaa ziyaada qaraaca wadnahiisa, cadaadiska dhiiggiisuna zaaid ayuu ziyaadaa, waxaa ka yimaada dhidid aada u fara badan, buuda indhahana aada bay u weynaadaan. waxayna waxaasoo dhan isbedelaan sakinada ugu horeeya uu sanka ka qaato ama uu xididka ka qaato. waxaynu ka hadlaynaa qaybtan qaabka ay u shaqeyso cocaine-tu, yacni qofka bini-aadmiga ah maskaxdiisa u gasho, hormoonkiisa u bedesho, shucuurtiisana ay u bedesho. marka qaabkan ay u shaqeyso cocaine-tu marka hore waxay ka gudubtaa oo ay raacdaa xididada dhiigga maskaxda tega, iyadoo ay sii marayso proton ku xidhan ka hortaga dareensidaha loo yaqaano caution organic. waxay u shaqeysaa sidii hormoon nooca loo yaqaano sympathetic. waa qayb markaa hormoonkani kamid a adrenaline-ta. tusaale ahaan adrenaline-tu qaabka yacni u shaqeyso ama ay faa-iidooyinka ay noo leedahay. tusaale haddaan soo qaato, haddii qof wax kadis ah ku dhacaan oo naxdin leh, waxaa isla markiiba jidhkiisa ku saaqa maadadan adrenaline, taasoo amar deg deg ah jidhka siisa, waxaana isbedelaa shucuurta qofka, wuxuuna jidhku isku diyaariyaa difaac ama falcelin oo ka falcelinayo waxa ku dhacay ama waxa kadiska yacni ka nixiyey. waxaana qofka siyaada neeftiisa ama neeftuurkiisa iyo cadaadiska dhiigga. go-aanka uu qaato waqtiga waxaa loo yaqaanaa adrenaline duul ama dagaalan. waa inuu qofku isla ilbiriqsiga isdifaaca oo dagaalama ama uu meeshii u ka cararaa. isla waqtigaasi haddii qofka wax jidhkiisa soo gaadho ma dareemayo. marka muhiimaddu waa tan weeyaan, wuxuuna u dareemayn maadaama oo jidhkiisa already au isgeliyay, yacni diyaar u ahaa in waxani ku dhaco oo markiiba jidhku difaac galay. laakiin gadaal xanuunkaas uu kusoo baxaya, hadhow tole markii naxdintu ka baxdo ayuu danqanayaa. haddaba daroogadan cocaine-tu waxay si dadban u maamushaa dareenkaas adrenaline-ka ah. waxa kaloo ay xanibtaa hormoonka qaabilsan qaybta farxadda iyo nashaadka, kaasoo loo yaqaano dopamine, iyadoo ku amarta in uu soo daayo xaddi ka badan xaddii dabiiciga ahaa, taasoo kordhinaysa qofka inuu yeesho firfircooni aada u badan iyo nashaad. okay, intaa haddaynu isla fahnay qaabkay maskaxda u raacdo ilaa dhiigga ay tagto, cocaine waa la qabatimaa, sababtoo ah waxay saameyn ku yeelataa shaqada neuronada maskaxda. haddii uu qofku wax yar joojiyay isagoo isticmaalay oo la qabatimay, waxaa ka imaan kara cawaaqib aada u xun, waxaana khalkhalaya dareen wadayaasha maskaxda, waxayna keenaysaa walaac, walbahaar, depression, iyo qofku ka tagay qiyamka iyo qiimaha uu leeyahay. sababtoo ah noloshan dhabta ah uma dhadhamayso, gebigeygaba wax dhadhan uma yeelanayso. gebigiisa wuxuu isku arkaa inuu sharaf lahayn, dadka ka liito, caajis iyo waxaasoo dhan buu dareemaya. ta ugu weyn oo iyaduna ah hoos u dhaca awoodda dareenka galmada raaxada, iyadoo weliba qofku uu daal badan dareemayo isagoo xataa waxba qabanin. dadka isticmaala maandooriyahan waxay khatar u yihiin oo ay u nugul yihiin cudurrada caabuqa dhiigga iyo wadna xanuun fara badan iyo dhaawac laftirkeyga soo gaadha maskaxda iyaduna kama maqna. inta badanna waxaa dhici karta xataa wadnaha shaqadiisa inuu gabo oo iska istaago, halkaana ay khatar dhimasho ay ka timaado. waxaa sahlan xataa si dhib yar inuu ku dhinto oo
ama uu isdilo ama waxyaabahaas oo dhan yacni aan soo sheegnay ay ku dhacaan. haddaba qolada ka ganacsata iibinta kokaynta waxay badanaa adeegsadaan inay ku sifeeyaan dawooyinka loo isticmaalo suuxdinta ee lifamasolka ama gelida saliideeda iyo sonkortiya waxaas. taas iyaduna waxay dhib weyn ku tahay caafimaadka qofka biniaadmiga oo khatar ugu jira inuu beerkiisu sumoobo ama sun jidhkiisa ay gasho. tirakoob la sameeyey 2018 waxaa la ogaaday inay isticmaaleen daroogadan kokaynta 19 milyan oo qof. inta badan dadoodu waxay u dhaxaysay 18 jir ilaa 64 jir. wadamada ugu badan ee dadku kokaynta isticmaalaana waxaa kow ah Mareykanka, Australia, New Zealand iyo qaaradda Yurub. dadka reer South America markii ugu horeysay taariikhda markii dib loo eego waa dadkii ugu horeeyay isticmaali jiray geedkan kookaha. inta badan waxay laakiin u isticmaali jireen geedkan laftirkiisa ay mararka qaarkood cunaahaan u adeegsan jireen wayna calashan jireen ayagoo u isticmaalaya sidii yacni qaabka anukaaba Soomaalidu qaadka ay cunaan. 1000 sano ka hor ayaa waxaa la helay yacni meyd 1000 sano ka hor ah ayaa la helay oo la mumify gareeyay oo hindi oo Red Indianski ahaa. marka meydkan wuxuu ahaa caadiyan asal ahaan dadkan Peruvianka loo yaqaano. meydkan kabacdi markii la baaray waxaa laga helay inuu geedka kookaha isticmaali jiray. marka taa laftirkeygu waxay yacni taariikhdu ay cadaynaysaa in geedkan kookaha ay dadkan Red Indianisku ay asalkii ay isticmaali jireen aynu isticmaali jireen cunahaan iyo inay ku qaylaan oo marqaan ka helaan iyagoo oo ruugaya geedka. marka inta badan xataa caafimaad ahaan marka loo eegana waxay isticmaali jireen dawo ahaan dawo dhaqameed ahaan oo marka ay fulinayaan qaliimo iyo waxyaabo caynkaas inta badan suuxdin bay u adeegsan jireen oo dadku ay ku suuxin jireen si ay qofka marka xaalad caafimaad ay ula tacaalaan. budadana waxay inta badan u isticmaali jireen xanuun baabiyo kale iyo meelaha boogta ay marin jireen si uu qofku maxaa la yiraahdaa boogtaasi ay bakteeriyada uga dilaan. iyo mararka qaarkood ay u adeegsan jireen xataa calool xanuunka iyo waxyaabaha caynkaas madax xanuunka iyo dad qaar oo waalida lagu daweyn jiray marka dib loo eego taariikhda. inta hadaynu isla fahanay waxaynu si kooban u eegi doonaa 5 kamida kuwa ugu caansan ka ganacsiga daroogada waqtigan ama jiilkeenan. waa dilaayaal manaxayaal ah naftana dhaafiya qof kastoo hor istaaga ganacsigooda. inkastoo intooda badan ama badankoodu ay gacansaar la leeyihiin siyaasiyiin, dowlado iyo ciidamo. waa shabakad maafiya ah iskuna xiran qaarad ka qaarad. waxay leeyihiin qayb hubaysan sirdoonno, diyaarado iyo ayu nooc oo gaadiid ah. xataa waxay si gooni u leeyihiin dad tababaran oo fuliya dilalka qorshaysan. qofka koowaad waxaynu soo qaadanaynaa El Chapo Guzman. waa boqorka maafiyada daroogooyinka ee Sinaloa Cartel oo ah isha boqolkiiba ugu badan ee daroogooyinka la keeno dalka Mareykanka ugu badan sanad kasta, taasoo ay mariyaan dhuumo dhulka hoosteeda ku yaala iyo diyaaradahaasoo daroogada ku daadiya iyadoo baca ku xidhan badda dhexdeeda. baddana waxaa ka gura dhuumo loogu talagalay laakiin iska dhiga kalluumaysato. El Chapo magaciisa dhabtiihi waa Joaquin Archibaldo Guzman. El Chapo waa naanays tilmaamaysa gaabnidiisa oo ah ninka gaaban maadaama uu gaaban yahay. wuxuu ku dhashay dalka Mexico sanadkii 1957. wuxuu ka soo jeedaa qoys faqri ah, ma helin fursad waxbarasho. shaqada daroogada wuxuu bilaabay isagoo yar maadaama aabihii uu ka ganacsan jiray xashiishada. wuxuu si degdeg ah caan uga dhex noqday mawjadihii maafiyada ah ee waqtiga ka ganacsan jiray daroogada. sanadkii 2006 jabintii heshiiska maafiyada Cartel, El Chapo wuxuu amray dilal iyo shirqoolo lagaga soo horjeedo dhinaca dowladda Mexico ee la dagaalanka mukhaadaraadka. dagaalkaasina wuxuu sababay inay ku naf waayaan 60,000 oo qof, 12,000 oo qofna loo afduubto. taas ayaa ka dhigtay inuu noqdo bilyaneer iyo weliba mid kamid ah ragga ugu awooda badan leh caalamka. tiraba waxaa la xiray 3 jeer. markii ugu horeysay waxaa la xiray sanadkii 1993 laakiin jeelka dadkii ka shaqaynayay oo dhan waa uu laaluushay. isagoo jeelka ku jira ayuu shaqadiisana watay oo uu maafiyada amarkaas oo ku amrayay inay ganacsiga daroogada sii wadaan. kuma uusan daahin 2001 ugu dambeyn jeelka uu ka baxsaday.
qabashadiisii labaad waxaa la qabtay February 2014. isla sidii hore jeelkana kuma raagin, waxay maafiyadu iibsadeen dhul u dhow jeelka, waxayna dowladda u sheegeen inay yihiin dad shacab ah oo bootada jeelka u dhow guryo ka dhisanaya. laakiin taasi beddelkeedu waxay sameeyeen waxay dhulka hoostiisa ka qodeen tunnel dhererkiisu gaadhayo meesha guriga ay ka dhisanayaan ilaa iyo jeelka qolka weliba uu ku xidhan yahay El Chapo. waxay ku qaadatay inay godka dhammaystiraan sanad iyo dheeraad. markii godkii dhammaystireena waxa uu iska dhigay El Chapo sidii qof musqusha galaya, iyadoo lagala socdo CCTV kaamerada ku dhegan gidaarkiisa qolka uu ku xidhan yahay. cabaar kadib waa kasoo bixi waayay El Chapo musqusha. askartii loo xil saaray ammaanka xabsiga markiiba waxay dareemeen inay wax qaldan yihiin. isla waqti yar kadib waxay soo galeen qolkii weliba musqushii El Chapo galay. nasiib daro waxay ugu tageen musqushii oo godweyn ka qodan yahay iyo El Chapo baxsaday. dowladaha isku bahaystay la dagaalanka daroogooyinka waxay madaxiisa saareen lacag gaaraysa $3 milyan oo dhinaca Mexico ah, iyo Mareykanka oo saaray $5 milyan oo. qofkii xog hela ama meel uu ku sugan yahay ama xog lagu soo qaban kara soo gudbiyo in intaas la siinayo. ugu dambeyn waxaa markii saddexaad laga soo qabtay isagoo meel ku dhuumanaya Mexico kamida, waxaana loo gudbiyey jeel ku yaala dalka Mareykanka. barnaamijkeenan uu soconaya wuxuu leeyahay qayb labaad. insha Allah waan kala qaybila qayb saddexaad, marka qaybta labaadna insha Allah mar dhow baan soo diyaarin doonaa maalmo dhow. haddaad ka heshay barnaamijkan like saar, dhiirigelin bay noqonaysaa. share haddaad samaysidna kaba sii wanaagsan. haddaad nagu soo beertidna thank you walaal. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.